annagoo xeerinayna derisnimada iyo Soomaalinimada waxaan marar badan ugu baaqnay maamulka Soomaalidiidka ah inay ka baxaan xuduudaha Puntland oo ay daandaansiga iyo gardarrada ku yimaadeen hase ahaatee arrintaasi kama suuro gelin Soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin aan warankaa u gelin weedhaadu ma gasho waxay la tahay inay hadda garan doonaan wixii aanu uga digaynin waxaan rabnaa inaan munaasabadan ku xusno uguna mahadcelinno madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal iyo maamulka jaamacadda Camuud jawaabtii munaasibka ahayd ay ka bixiyeen hadalkii farakufiiq ahaa ee ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe kaasoo lidi ku ahaa amniga waxbarashada ardada Soomaaliyeed kana soo horjeeday diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliya iyo tan islaamka madaxweyne mudanayaal taariikhdu ma dugowdo waxaan u sheegaynaa kuwa Soomaalidiidka Puntland waxay markasta u taagan tahay difaaca midnimada sharafta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed sidaa awgeed wixii aanu ka qaadan weynay qarnigii 19aad dawladihii gumaystaha ahaa maanta oo la joogo qarnigii 11aad ka yeeli mayno koox Soomaalidiid ah oo u adeegaysa cadowga Soomaaliyeed fulinaysana afkaartii gumaystihii waqtigaas joogay waxaan nasiib darro ah in xildhibaano ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed ee federaalka ah inay si badheedh ah warbaahinta uga taageeraan kuwa duulaanka ku ah qarannimada iyo midnimada dalka una xusul duubayaan in ay dalka kala gooyaan arrintaas oo ah mid soo noqnoqotay kana hor imanaysa xadgudubka na ku ah dastuurka iyo qawaaniinta ee dalka Soomaaliya u yaala sidaas awgeed waxaan codsanaynaa madaxda qaranka federaalka Soomaaliyeed inay arrimahaas wax laga qabto lana mariyo waxa kaga aadan sharciga madaxweyne mudanayaal anigoo ku hadlay afka golaha wakiilada dawladda Puntland waxaan u sheegaynaa beesha caalamka urur goboleedka UYAD iyo dhammaan inta danaysa amniga iyo deganaanshaha Soomaaliya in xuduudaha Puntland yihiin kuwa dastuuri ah ku dhisan Soomaalinimo iyo rabitaanka shacabka reer Puntland isla markaana waafaqsan federaalka Soomaaliya sidaas awgeed midnimada iyo wadajirka Puntland waa muqadas lama taabtaan waxaan cod dheer ugu sheegaynaa inaan Puntland marnaba gorgortan iyo wada hadal ka ogolaan doonin intaa ka dhulkeeda ka mid ah laga gooyo dalka intiisa kale ama cadowga Soomaalidiidka ahi sii joogaan madaxweyne mudanayaal kalfadhiga 14aad waxaa golaha hor yaalla ajendayaal muhiima waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay guulo inoo ku dhamaadaan ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland meel kasta ay joogaan inay ilaashadaan midnimadooda iyo qarannimadooda lana shaqeeyaan dawladooda waxaan ku guuleysanaynaa wadajirkeena midnimadeena insha Allah